بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باقيارتا قيمها iyo qadarinta naga mudan ee naga daawanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan kula yeelanayno dalkan Holland Saraayaagaas General Cabdullaahi Maxamuud Gaafo taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo booqasho ku maraya qaaradda Yurub waxaanu ka wareysan doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan xaaladda socdaalka iyo waliba immigrationka waddanka Soomaaliya iyo waliba safarkiisa uu ku yimid waddankan General ku soo dhaw markaa Bismillahir Rahmaanir Rahiim aad ayaan uga mahad celinayaa in la igu soo dhaweeyo TV-ga qaranka safarkaygan aan ka waramo waxyaabihii noo qabsamay iyo waxyaabo noo qabsami doono وماستر جنرال عبد الله marka hore waxaad booqasho ku timid qaaradda Yurub wadamo badan soo martay hadda waxaad joogtaa Holland waxaan filayaa in socdaalkaagu uu yahay socdaal rasmi ah oo ku saabsan waxyaabo badan oo shaqadaada ah bal safarkan Holland aad ku timid bal ka waran ujeedadiisa Bismillahir Rahmaanir Rahiim hortaada u mahadsan tahay aniga waa markaan waxaan soo maray dalal badan oo Yurub haddana kuwa kale ay sii dhiman taasna waxay ku timid dadaalkii dheeraad aan qabanay shaqadii immigrationka oo kor u kacday baasaboorkeena oo magac iyo muunad yeeshay xiriir fiican oo dawladdu yeelatay dhammaan dawladaha kale aan saaxiibka nahay kuwaasoo maanta gartay inay immigrationka nala dhisaan haddii ahaan lahayd tababarka haddii ahaan lahayd dhaqaale ay ku bixiyaan haddii ahaan lahayd dhismo loo sameeyo ee xafiis u qalmo immigrationka oo aad u wanaagsan intaas maxaa dawladda Holland aad ka wada hadashay inta aad joogto halkaan dawladda Holland waxay ka mid tahay dawladaha 10 dawladood oo Yurub oo isbiirsaday oo ku heshiiyay inay immigrationka ay kor u qaadaan aqoontiisa iyo tayadiisa iyo capacity intaasbu tobankaas dawlo markii aan wada hadalnay waxay dhameysteen in aniga aan dawladooda soo marno soo qancino u soo sheegno waxaan qabanno u soo sheegno wax baahideena kala soo hadalno wixii in la qabto ay tahay waxaan ka bilaabay Norway 5 maalmood aan joogay waxaan la kulmay ninka xukuumada immigrationka Norway aad iyo aad uu noo soo dhaweeyay aad iyo aad uu ballanqaad noogu sameeyay aad iyo aad horteen wuxuu ku amray inta barkaasna la wado dhismahaas immigration cusub oo la dhisana ay ka qayb galayaan marka labadii qodob aan u soconay halkaas kuwa nooga hagaagtay mar labaad waxaan tagay dalka Ingiriiska kaasoo asana si aan caadi ah noogu soo dhaweeyay dadka aan la kulmay waxa ugu sareeyay ninka immigration xukuumadda generalka asagana wuxuu noo ballan qaaday in arrimaha baasaboorkeena markaan ka hadalnay markii aan tusnay baasaboorkeena qiimaha uu leeyahay markii aan tusnay qiimeynta adduunka la sameeyay halka aan ka soo galnay anagoo ka soo baxnay zero maanta meeshaan marayno baahideenna markaan uga sheekaynay asagana wuxuu amray inuu 2 qof isbeertaa noo soo diro nala arko nagala shaqeeyo wixii ka dhiman baasaboorkeenana oo aniga ballan qaaday inay dhammaystirayaan saadarteedna ayaa la aqoonsanayo Holland marka maxaa Holland si toos ah ula hadasheen maadaama immigration Holland iyo waxyaabo badan aad halkaan kala hadashay dawladda Holland ayagana waa wada hadalnay sidoo kale ninka immigrationka xukuumadda aragnay qolooyin kale oo booliiska oo ayaan aragnay qolooyin kale oo wasaaradda arrimaha dibadda oo ayaga ay marti qaadeen aragnay laakiin ujeedada rasmiga ah ninkaas immigrationka ay ahayd asagana ballanqaadkaas ay labadaas dawlad hore soo ballan qaadeen ayuu la mid yahay ayaga askaashanayo ayagana intaas ballanqaado aan ku soo sheegay sameeynayo bishan hadda aan ku jirno kooda maanta afarteeda ayuu wuxuu ka bilaabanayaa tababarka magaalada Xamar safaaradda Ingiriiska oo ku dhex taala airportka ayaana lagu qabanayaa 9 dawlad oo Yurub aan ka qayb galaya tababarkaas maxaa shaqaalihiina immigrationka laga tababaraya waxa laga tababaraya dawladdu waxay ku guuleysatay in maanta terminal weyn oo cusub la dhisay kii horena laga baxay terminalkan weyn awal cariiri baan ku jirnay diyaaradaha waxa soo gashaday 2 diyaar isku timaado dib badan aan la kulmi jirnay maanta waa meel weyn waxay u baahan tahay marka shaqaale badan oo tababaran waxay u baahan tahay qalab fara badan oo daatadii awal waa yaree daatadii maanta daatadii weyn marka intaas dhan naga caawinaya terminalkaas cusub dhisay shaqaale ka shaqeeyay oo terminal adduunka ka taagan shaqada ay qabtaan ragga qabanaya la tababaraya kuwa jooga iyo kuwa cusub intaba
waa tahay maadaama tababarkaas oo hadda aad ka hesheen dowlado badan oo Yurub ka mid ah shaqaalihii immigrationkana la tababaraayo waxaa sidoo kale farxad ah oo dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed u farxad ah in baasaboorka Soomaaliya meel fiican maraayo wadamo fara badan oo dowlad ka jirto oo dhisan oo nidaamsan inuu ka sara maray maxaad leedahay baasaboorka Soomaaliya waa gaarsiiyay arintan aad u mahadsantahay horta baasaboorka Soomaaliya aanay 2007 soo bilaabay 2007 markaan bilaabaynay dhibaato taagneed baasaboorka cagaaran ayaa meel walba ku daadsanay dhibaato fara badan waa kala soo kulanay amba nafteena dhibaato gelisay amba shaqadeena dhibaato gelisay laakiin dhabar adeeg fara badan iyo aqoon fara badan iyo way aragnimo fara badan oo leeyahay adkeysigeygii maanta wuxuu na gaarsiiyay horta dunida inaan ka dhameynay baasaboorka cagaaray inaan sagxadda caalamka ku soo celinay baasaboor Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh oo magac leh waxaa ku tusaysaa haddaanay baasaboorkaan wato visa igu taalo Shanghai inta dowlado Yurub ayaan saan u dhex mari karaa labo dowladaha haddaan is aragnay waxaan ka soo dhameeyay dadka wixii shaqaysan karo in baasaboor Soomaaliya ay qaataan rasmi loo sameeyo rasmi sameeyaan Ingiriiska already waa bilaabo rasmi soo siinaya qoladan hadda baasaboorka Soomaaliya la isku siinaa deganaansho baasaboorka Soomaaliga deganaansho lagu siiyaa haddaba lagu siiyaa Ingiriiska inta aniga joogana waa la sameeyay iga horna way bilaabatay oo horaan uga wada hadalnay ballankeedna way fuliyeen way ku wadaan qoladan xalan kala hadlay baasaboor la'aan ay jirteen Belgium safaaraddeena Soomaaliya ayaan ka furaynaa wiigan haddii alla idmo baasaboorka Soomaaliya dan wixii Yurubkan dhex joogo Belgium baasaboorka qaadan ma wayn doonaan Ingiriiskana insha Allah hore uga furaa jiray uu xirmay si lagu fur lahaa dowladda kala shaqeynaa haddii alla idmo faa'iido oo dadka Soomaaliyeed ay ka dhaxli doonaan ama ay ka heli doonaan baasaboorka Soomaaliga naqana hadiiba deganaansho loo saarayo waxaad ka warantaa bal ka waran maxaa adag oo maxaa idinka hor imaanaya caqabad oo baasaboorka iyo maadaama baasaboorkii cagaarnaa laga aruuriyay adduunyada dhan oo aan hadda shaqaynayn baasaboorkan maxaa adag oo idinka hor imaan kara caqabadihii maanta way dhamaadeen caqabadii ugu dambeysay oo aan ka baxnay waxay ahayd xajka oo Sacuudiga marar badan dadku xajay aadayeen arrimo diinad waaye dadkii waxay ku andacoonayeen baasaboorkii ma heli karno saas darteed loogu fududeyn jiray laakiin sanadkii hore Sacuudiga markaan isu tagnay markaan baasaboorkeen u geynay markaan tusnay gacanta ammaanka oo ku jiro markaan tusnay baasaboorada caalamiga adduunka oo kamid yahay waxay joojiyeen kii cagaaray qof kasta oo Soomaaliya maanta oo rabo meel walba dunida ka joogo oo rabo inuu Soomaalinimo ku xajiyo baasaboorkaas kaliya ayuu ku geli karaa baasaboor kale oo loo geli kara mare marka caqabadii noogu dambeysay taas ayadana waa ka baxnay dad fara badan waxay ka cabanayaan dhibaatooyinka ka jira dhinaca cariiriga baasaboorada meelaha laga qaato bal arintaas ka waran aniga waxaan qabaa saxba ka jirin 31 safaarad dowladda Soomaaliya leedahay baasaboorka waa ka furan yahay qof kasta oo halka joogana si sahlan u helaa kuwa kale oo baasaboor ka furayna oo anaga hadda u dhaweynayno inta kuma ka dalka gudihiisa Puntland wuxuu ka furan yahay Boosaaso wuxuu ka furan yahay Garowe wuxuu ka furan yahay Gaalkacyo sidoo kale wuxuu ka furan yahay Galmudug wuxuu ka furan yahay Cadaado wuxuu ka furan yahay Dhuusamareeb wuxuu ka furan yahay Gurceel wuxuu ka furan yahay Beledweyne wuxuu ka furan yahay Jowhar wuxuu ka furan yahay Baydhabo wuxuu ka furan yahay Kismaayo intaas oo dhan waxaan ula jeednaa waxa waa meeshii nabadaba waageyna baasaboorku wuxuu ka mid yahay arrimaha bulshada inaan qof Soomaaliya ee dhibaato ka soo gaarin inuu baasaboor waayo mana qabo in qof Soomaaliya baasaboor cariir ka galay gobolada dalka tusaale ahaan maamulka Soomaaliland oo kale waxay dhahan anaga baasaboor gooni ah haysanaa baasaboorka Soomaaliya kuma duulno baasaboorkeenan ku duulnaa meel kastaan ku marnaa arintaas ka war wallahi aniga aan sorta arin siyaasadeed waay inaan ka hadlo iguma haboono haday baasaboor leeyahay kuma haysano waa ku duuli karaan laakiin aniga waxaan ogahay dadkaas Soomaaliland inaan waqtiga xajka iyo waqtiga kalaba inay baasaboorkeena qaataan ay tagaan meelaha cariiriyo sida Puntland Garowe iyo Gaalkacyo u doontaan marar badan aan uga furnay xataa maxaa la yiraahdaa wadankooda gudihiisa anaga oo fudeynayno markii anagu kama duwanin baasaboorka Itoobiyaanka kan Djibouti intaba waa la siiyaa dadka anagaba ka xigno in anaga siino anaga sharaf kalaam inoo taa walaalahan waay marka arrin siyaasadeed kuma xirro waa arrin bulsho baasaboorka
waa mahadsantahay jenaraal haddii aan dhinaca baasaboorkii arrimahaas aan ka soo leexdo waxaa jira dad fara badan oo qaxooti Soomaaliyeed oo Yurub aad u degan iyo Soomaaliya meelo fara badan dadkaas inta badan dhibaata ka haysata dawladaha Iloorinka qaarkood tirada yar oo sharci la'aanta ah dad fara badan xoog lagu celiyaa dad fara badan ayaga si mutadawacnimo inta u tagaan dawladda yiraahdaa hana la celiyo bal arrimahaas ka waran cabasho badan ka jirta Muqdisho dad badan la geeyaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta celiska waa labo ninna waa nin dalkeygii halay celiyiri oo voluntary ah ninna waa nin dawladahan dembi ama sharci darro ka galaan wax loo ogoleen ayaga rabaan inay qasab isaga celiyaan ninka voluntary-ga ee dalkaygan ku noqonaya qof u diidi kara dalkiisa inuu soo galo haba yaraatee ma jirto haddii la soo celiyo dhibaato kale ma kulmo ay raboorna laguma xujeeyo meelna laguma qabto midka xoogga ah annaga ma ogolin xoog dawladda Soomaaliyeed u taallaa dawladda go'aan ka gaari karto mid immigration go'aan ka gaari kara maan dawladda Soomaaliyeed go'aan hadda ay gaartay ilaa dadka la celiyo habeerta aniga ma hayo in kasta ay ka duwan tahay dawladdan dawladii hore ay tahay dawlad ku meel gaar ay sanadeen ay dawlad rasmi tahay si dawladnimo loo xisaabtamayo inay dhowraan saaxiibtinimada iyo siyaasadda dalka dhowraan ay qasab tahay haddana ilaa hadda wax qasaba oo gooni ma aragno haddii ay dhacdana dawladda waxay u sameyn doontaa wax la isku ogyahay oo qofka daryeelkiisa wali oo ku sii socon karo marka waxaad leedahay dadka cabanayo dhahay annaga xoogana lagu celiyaa iyo inaysan jirin oo eelaboorka idinka aad taagantihiin oo qofkii xoog lagu celiyo kale aad dib ugu soo celinaysaan diyaaradda horena waa u soo celinay go'aan dawladeed anaga ma hayno intaan go'aan dawlad kaleynana wixii xoog lagu soo celiyo waa soo celinayna ma ogolaanayno laakiin mid ka daranaaba jirto walwal fara badan aan ka qabno dad badan aan Soomaali ahayn oo baasaboorkii cagaaree Soomaaliyeed isku dhiibay amba Soomaalinimo sheegtay dalalkooda dawladda oo aan laga ogolaanayn inay helaan qaxootinimo ayaa ka buuxa dalalkan oo aan Soomaali ahayn sidaa darteed horta amba ha ahaado voluntary amba ha ahaado mid la soo qasbayo waxaa shardi kow inay soo ogeysiyaan oo aan xaqiijino Soomaalinimadiisa maalin dhaweed nin baan ka soo celinay airportka Xamar oo aan ku soo celinay dawladda Ingiriiska oo sheegtay inuu yahay Soomaali ma ahayn aniga airportkan kula kulmay waa wareystay dagaal fara badan iyo dhibaato fara badan oo airportka muujiyay diyaaradda Turkiga oo qaalimaa tiri dhibaato badan aan dhex martay laakiin marka dambe waa la celiyo waa la qaaday hadda markaan la tagay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa ninkii inaan qancisid oo noo muujisid inuu Soomaali ahayn waan ka yeelay ninka waa ii keenan hortoodan ku wareystay haba yaraatay wuxuu Soomaali shaqo ku leeyahay male waxaan ogaaday dad xabsi ku jira Soomaaliya inuu xabsi ka dhibsaday laalush wax ka qaateen islaan degan London la hadlay oo islaantaana ku dhashay aba ma taqaanid magaca sheego saas sheego soo sheegtay noo keenan islaantii uu sheegtaan la hadlay wax isu yihiin ma jiraan haba yaraatay marka dhibkaas jiro waan kala hadalnay dhibkaas jiro ayaa ka horeeyo inay wax soo celiyaan ama volunteer ha qaado ama yuusan ahaanin waxa kale oo aad iga sheekaysaa bal maxaa qiso ah oo ku soo maray dad la soo celiyo kale aad aragtay oo xoog lagu keenay inaad soo celisaan oo kale wax qiso oo aad ka sheekayn karto ma jiro dhibaatooyinkaas والله قصة dhibaato fara badan way dhaxda ka hor waxaan la kulmay nin la soo celiyo Xamar la keenay oo aan ku soo celiyay diyaaradda isla horena ahayd ninkaas 3 bilood ka bacdi waxa la ii keen hadana asagoo la voluntary baan ahay laakiin wax uu kala og yahay aan la arag ninka aan shaga aniga diyaaradda ku celiyay oo maanta asoon garashada la ii keenay inaan mar kale ku celiyo xoogaa damiirkayga iga diiday waa waday waxaan geeyay Xustal Xabeeb lacag aan ku bixinay muddo 3 bilood la soo daaweynay 3 bilood ka bacdi wuxuu yimid asoo dhahayo halkeen jooga horta iyo halkaan keenay marka dhibkaasna waa jiraa waxay ugu dhib badnaan arkay xataa maalintii hore aabihi iyo ismigiisa wuxuu yaqaan marayn laakiin warqad rasmi oo saxiixan oo leeyahay voluntary baan ahay ana rabo ayaa meesha til marka dhibaatada aan la kulanta saacad mid baad Xamar joogo oo voluntary baan ahay on keenay af Soomaaliga ma qaano holana la keenay af holana ma qaano yiri markay naga tageen nimanka keeneen meel waddo ugu weyn hadda meelan ku haynaa qarashaan nooga baxo markay ma diri karno ma sameyn karno
marka dhibaatooyinku ma yaro waxa dadku sheegaan ka badan qabnaa annaga badanaa waxaa jirta in dadka Soomaalida qaarkood sidaad sheegtay ayagoo volunteer sheegtaan ayagoo qaarkood inay jiriyeen laga yaabaa marka maxaa shuruuda idinka yaal haddii xitaa qofka volunteerka lagu keenayo imaanayo shuruud ma jirto qofka inuu xanuunsan yahay oo kale afar shuruudood qasaba horta koow in la cadeeyo inuu Soomaalnimada sideen cadeyn ma ka wada hadlayno laba inuu caafimaad qabo oo qofkaas caafimaadkiisa oo fid yahay saddex in asaga uu rabo dalkiisa inuu ku soo noqdo oo anagana horteena ka cadeeyo ayagana ay qoraal ay wataan afar in uu maxaa la yiraahdaa wax uu ku noolaado ya oo anaga aan shaqo ku leen oo ayaga keenay iyo asaga ka dhaxeeyo loo sameeyo midda shanaad aan hortaagan iska diidana waxa kamid ah waa in reception dadka lagu haayo loo sameeyo sababtoo ah dadkan nin 20 sano halka joogay afka Soomaaliga aan aqoonin dalka aan cidna ka aqoonin meelo yaqaan aan la arag haddaan magaalada iska sii deyn meel aad male waxaan dhaanay inta muddo 6 bilood ama 5 bilood meel lagu haayo intuu dadkiisa ka baranayo inta aan ruuxna aan ka ogaanayno inuu dalka mujtamac dhex gali karo in lagu haayo inaan sameeyno afarta qodob oo kale way ogol yihiin laakiin qodobkan reception-ka ay xiliin anaga ma yeeli karna sababtoo ah dawladeena ma ogolo in qof meel lagu haayo dalka intaan ka wadnay marka intaas waa inta hadii isku afgaranaanay oo voluntary xataa u soclaaya sidoo kale waxaan ka rabaa maadaama dhinacaas aan ugu baxno arrimahaas arrin kale jirto waxaad nooga warantaa oo dadka Soomaaliyeed aad u faahfaahisaa bal horumarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho cadda diyaaradaha internationalka ka soo daga horumarka meeshaas ka jira maalintii duulimaadyada meesha yimaada sida ay hadda wax u socdaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rabaa intaan taas aan bilaano mid ku sheego garoonka aadan cadde maalmihii la furayay diyaaradaha oo amba keeno qolooyinkan UN-ka amba qolooyinkan maxaa la yiraahdaa diyaaradaha soo ijaarto amba diyaaradaheena localka amba kuwa internationalka dalkeena ka shaqeynayo 8 saac hadii la gaaro diyaarada waa carar jirta meesha ka caraabi jirta maanta waxaan gaarnay in 9 saac 10 saac diyaaradu galbeed diyaaradu inay soo hoydaanbo garoonka xamar oo halka ku baryaan oo subaxda ka dhalmadaan sababta wali waxa xiran garoonka habeenkii ayaa xiran marka waxaad ka garan kartaa marka horumarka la gaaray diyaaradii caraabi jiro garoonka carada jira hadii inay soo caraabayaan oo halkaas habeen ku baryayaan in 10 diyaaradood 12 diyaaradood habeen ku baraydo taas waxa weeye marka wadanku ammaan yahay airportka inuu ammaan yahay airportka caalami oo noqday in diyaaradu soo hoydeen intaas kaliya maahan diyaarada international oo fara badan ay yimaado iyo kuwa local maanta waxa tirada ka bataba dadka Soomaaliya ay gaareenbo qolo kasta rabtay inay aado gobol diyaarada jirto zaman dadka baabuurta iyo maadaama ay dhibaato galeen diyaarada yar wadanka buuxo oo gobolada wada aadayo oo shaqeynayo iyo kuwa internationalka ay oo imaanay diyaarada Turkiga maalintii wareysay hal maalin imaan jirtay 2 maalmood ay ka dhigatay 3 ay ka dhigatay 4 ay ka dhigatay hadda waa daily waa maalin walba way marka intaas ku tusoo mar kuwa ka hadda diyaarada qadar ayadan imaanayso wiiga soo socda Allah idno oo aydan dulimaad bilaabi doonto kuwa kale badan wali gacanta dawladda ku jiraan oo ogolaashay ay sugayaan marka dalkeenu waa kacay garoonka aadan cadna waa kacay terminal cusub oo ku filan dadku soo waday karaan waa la helay civil aviation-ka iyo balka war shaqaale intee la ega oo intaas oo diyaaradood maalintii maadaama ay soo dagayaan balka war shaqaalada ma ajaanib miya shaqaalaha ka shaqeeya ma Soomaali waa la tababaray shaqaalaha ka shaqeeya Soomaali waaye laakiin shirkadda maamulka airportka hayso civil aviation kor ka xukumahay waa favori waa shirkad Turkiya laakiin waxa shaqeeya Soomaali waaye ugu dambeyntii maxaa dadka Soomaaliyeed u sheegaysaa qaasatan maxaa u sheegaysaa dadka Soomaalida inta badan wararka beenta laga buuxiyo lahayo waalis celiya halkaas dadka Soomaalida dawladeedu wax ma u qabato dadka qofkii inta la celiyo oo qasab xataa lagu celiyo wax ma u qabtaan magaalada isaga sidayaan oo kale bismillaahir rahmaanir rahiim dadka waxaan leeyahay kulligeen iimaanka Allah na wada geliyo intaan been wada sheegaynana ma gaarayno horumar dawladda Soomaaliyeed waxay ku dadaashay qof kasta Soomaaliya oo dalkaas lagu soo celinayo ama voluntary ahaada ama uu ahaanina horta in la daryeelo garoonka xamar hadii la keeno asoo voluntary ah
waa la fariisiyaa dadkiisa loo wacaa in ammaankiisa la dhowro maalintii dadkiisa loo helo oo airboortka ugu yimaadaan oo ballan qaadaan qofka in ayaga yaqaanaan ayaa lagu daraa intaas waxa loola jeeda waxa waaye in qofkaas la dhowro nabadgelyadiisi inta qofkaas oo dadkiisa ka imaanayo immigrationka gacanta ku hayo meelay seexdaan siinaa meelay fadhiistaan siinaa dadkan ka helno laakiin dadkan maba weynabo dadkii oo qaabil lahay marka intaasna waxa loola jeeda qofka waa la keenay waa la tuurin oo dheen sababtoo ah ninkan muddo dalka maana karay waa qodob kuwa qasabka lagu keeno oo bicilinaabo samaan may waa suuragal in qof iyo laba laga ogolaado sabab jira awgeed amba sabab dawladeed amba dawladda soo ogolaato laakiin 98% dadka oo involuntary ah waa soo celinaa ma ogolaadno marka waxaan dadka ilaa waxa waay dadka dalka dawladda jirto adinkeedan daryeelayso adinkan isdaryeela adiga ruuxaada wax dana kuma ahan dal aadan lahayn shaqo aadan ku haysan xabsi aad uga jirto inaad iska dhex joogto bari aad waxa laga sii daayay xabsiga ee magaalada lagu tuuro bari waxaad gaareen mar aadan adiga tigdeeli karin Soomaan marka anigu waxaan waa kula talinahay anigu ku qasbayno shaqana ku maliin laakiin dalkaadii ku baahan haddii aad tahay qof Soomaali oo fiican haddii kale dadkan la shaqayso oo waxtar oo qaarkood mugtaa maahan loo diidaa asiriyumka loo diida maahan qaarkood dembiyay dalkan ka galeen kuwa dalkan dembiyada ka galaan ma ogolin noo keeno marka dembiga dalkan ka galay xagga uu ka gelaya oo shanta qodob ay ka mid tahay qofka dembigii wax lagu xiray soo sheegan haddii loo diiday siyaasad inuu qaxootinimada loo diidana waa gooni nin dambiila ee xabsiga galay ee xabsiga ku hayeen dembigiisa aan dhamaysan aan bay rabaan dembigiisa xaq in la soo bedelana go'aan dawladdu baanta soo celin maxaabiis ma ahan arrin immigration man arrin dawladeed waay marka aniga waxaan ilaa waxa waay dadka Soomaaliyeed shalay waxa ka soo tagteen nabad xumo maanta dawladda nabadii ka shaqeynaysaa nabadda nagala shaqeeyaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal waraysigii gaarka ah ee aan dalka Holland ugu qaadaynay General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud taliyaha hoggaanka socdaalka iyo waliba jinsiyadaha ee dawladda Soomaaliya oo booqasho ku jooga wadanka Holland dhinaca kaamirada iyo farsamada waa Raagacal Dheere anigoo taajiro ah ayaa waraysiga idin qaaday intaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh